injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cudoo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay shirkii magaalada Baydhabo ugu soo dhamaaday madaxda Soomaaliya in loogu saxay Puntland hub taas oo ujeedkeedu yahay inay kula dagaalanto Somaliland sida uu sheegay qodobo ka soo baxay waxa kamid ahaa in hub la siiyo magaalada ay qododan sheegin garoobay boosaaso degan oo kula dagaalamaan waxay u yeelaan argagixisada hubkaasi waxa loo siinayaa waxa weeye inay naga nabad dagaalamo argagixisada meesha ka jirta ma jirto kuwii hore markii horena waxay dadka masaakiinta reer dig iyo milfla ah ee boosaasa u soo shaqo doontay bacdayaasha ku haysta ayay inta kala qabtan ilahaan shabaab baanu qaban online horena waa kuwii galmudug ciidamada Mareykanka ku soo hogaamiyay dhowr iyo 10kii loogu soo tababaray magaalada Beledweyne si ay la dagaalamaan dhalinyarada shabaab ay argagixisada ku sheegeen ay ku laayeen waxa weeye waxa caadaysteen inay ka macaashaan beentooda magaalada ilaa garow waxa ka sameeysan lacagtii burcadadeedka waa nimankii ka suurta gashay inay burcadadeed sameeyaan inay ilahan waa la dagaalamayna oo lacag lagu siiyo in maxaabiistoodii la soo qabtay ilahan anaga hayn oo lacag lagu siiyo kan lacag sameeyay idna uma roonidin aan leeyahay maxamed saad bare wuxuu yiri ma jeerta waa wariiri waxa la ilaha inuu wax la dhaxo qoreed hadduu guntiga ku galo koomeel buu ka qaniini wariiriga anaga macawis ugu dili doona insha Allah ta'ala haddii joogsid oo nabad baan doonina madal baan doonina dadka Soomaaliya halka degan nabad baan rabnaa laakiin waxba iska cilna dadka ma doonto laakiin waxaan leeyahay reer Muqdisho hubka la bixinayo aan masoo kale sheegiyo cawaaqibadii idinku damayn doonta sida idinku sanad joogin guriga la idinku garaacay Cabdi Qaybi la dili gaaray Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur lagu 5 qof oo reerkiisa horisood lagu dilay waa wake up call baan namoodina Soomaaliya qoraal ku soo socdo injineer Faysal Cali Waraabe waxa kale oo uu sheegay in xaaladda gobolka Sool lagaga hadlayo golaha ammaanka ee qaramada midoobay arintaas oo ay dabada ka riixayso Soomaaliya arinta tukara anigu nabad baan ka rabnaa maanta waxa laga hadlayaa baleeyay Sool United Security Council yaa geeyay arinta yarayso ka Security Council iyaga geeyay waxa cadaatay in hadda ay dalkii Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen adduunka ku dhigay iyo farmaajo ay ku dhigeen waxaad ka garanaysaa shanta dowlad goboleed waxa gudoomiye u ah adduunka madaxweynaha Soomaaliya maamulka Muqdisho waayo waa farmaajo waxaan sheegnaa xaaf hubka ashalay saxeexday adun baa lagu la dagaalamaya anagu waa iska celin karnaa injineerku waxa kale oo ka hadlay lacagta 1 milyan ee Soomaaliya ugu deeqday dadka duufaantu waxyeelaysay ee deegaamada Somaliland lacagtu waa lacag magac Soomaaliya lagu soo qaatay sheebka magaalada caabi waaqna ka muuqeynay farmaajina ugu muu dhiman waa lacagta magac Soomaaliyeed oo siinna la siiyo dadka la gaarsiiyo laakiin wax aabaa lagu qabnay waa waraabe ciidan oo qaban adna u tuur Faysal waxa kale oo ku baaqay in gacan adag lagu qabto dadka si hurinayo colaadda Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag waxaan taariikhinayaa dadka xabad joojin sameeyay waxaan taariikhinayaa garaad jaamac garaad Ismaaciil garaadku waa ka nabadda ka shaqeynaya ee Soomaali meel joogto garaad baan nin macawis cunay inta haga camaaya saartay marmarkii islaanti bariida islaan xaaskiisa soo qaatay idin waxaan caaqiliyo iyo sultan waxa laga ganaya amalkiisa laga ganaya laga xabad joojin sameeyay waa taageerina waa wanaajina waa ahmariyana ragga dabka shidiya ee ku hadlaya ee TV ka hadlaya ee kicinaya qasiya nabadda ee isku sheegaya dhaqameed dawladdu waa soo qabataa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee injineer Faysal Cali Waraabe ayaan weydiinay bal inay jiraan dadaalo lagu dhexdhexaadinayo Puntland iyo Somaliland si loo qaboojiyo dagaalka
هذا ماشي عيد الله هذا متشفت ولا طبعين له على الله هذا ماشي نيجي قبيل يا طلايا يا ريه بلا إلا ورد إيه بقى لقى صويع إلا كسمايا لقى صويع وقبيل تعال قبيل الدولة دوم يلا هذا الكلام وقضية السجى هو هذا قعنته حقوق جنا يسوي حكي دجال قبيل بوكي لكن دلالة فلوس لكن توبي ولا حكمان بقى لكن هو أنت وحوي دو فرماتش هوي دو ما ممكن فرماتش سمي أورن ما ممكن ده سامسين قالوا يبغى سمي أورن وحن حسب ما عندنا الدولة ده فرماتش ده حكمه سيانا وده هذا السوداني كتش علينا سوي إنه حسن قلايد تلفزيون كون كيبل هرقيسا